halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado 13 bisha Oktoobar saacada Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa labada duhurnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeennani waxaa kamid ah booliska Soomaaliya oo shaaciyay wadooyinka xirnaa ee Muqdisho la furayo. xubno ka tirsan xisbiga TPLF oo ku gacan sayday go'aan dhawaan xisbigooda ka soo yeedhay. siyaasi caan ah oo reer Malaysia oo codsi u gudbiyay boqorka dalkaasi si uu ra'iisul wasaare u noqdo. boqorku wuxuu baahan inuu aqbalo hadduu aqbalana Anwar 122 xildhibaan oo cod majority oo kalsooni looga qaadi karo ra'iisul wasaaraha talada haya. dadka qaar waxay aaminsan yihiin perception kale oo ah inuusan boqorka aqbali doonin oo macnaha doorasho election la aadi doono maadaama wadankii lockdown ku jiro. askari taliye ciidan ku dilay Hargeysa oo lagu raad jooga iyo qodobo kale. barnaamijka waxaa si wada jir soo saaray Samiir Cabdullaahi Jaamaci Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh anu Cabdiraxmaan Xaaji Caddo in la socodsiinay mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal. qodobadaasi oo faahfaahsan ay noo dambeeyaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka idaacadeena duhurnimo waxaana u diyaaray Cabdifataax Ibraahim Cagayre oo hoygiisa ku sugan. mahadsanid Cabdiraxmaan. dowladda Shiinaha ayaa waxay daabacday in faa'iido ganacsi oo aad u xoogan uu dalkaas helay bishii Sebtembar iyadoo alaabaha dalkaas laga dhoofiyo iyo kuwa loo bicigeeyaba ay kobceen wax ka badan intii markii hore la saadaalinayay. sidaasna waxaa lagu muujinayaa in dalkaas uu si wanaagsan uga soo kabsanayo fayraska corona. sare u kaca ganacsiga ayaa imanaya xilli dalalka dhaqaalaha buuran ee dunida ay la daaladhacayaan dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid tahay kobac xadidan, shaqo la'aan sii badanaysa iyo hoos u dhac ku yimid dakhligii ka soo xaroon jiray dhinaca canshuuraha. dowladda Australia ayaa waxay baaraysaa warar sheegaya in Shiinaha uu joojiyay qaadashada dhuxusha dalkaas looga dhoofin jiray. haddii arrintaas la xaqiijiyo waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dhaqaalaha Australia maadaama suuqa ugu weyn ee dhuxusha dalkaas loo bicigeeyo uu yahay waddankaasi Shiinaha. mid ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn loo yaqaan ee waddanka Malaysia ayaa waxa uu soo bandhigay inuu doonayo inuu noqdo ra'iisul wasaare kadib bilooyin dalkaas ay ka jirtay hubanti la'aan dhinaca siyaasadda. Anwar Ibrahim ayaa waxa uu booqday boqorka si uu ugu sheego inuu haysto taageerada inta badan xildhibaanada baarlamaanka dalkaas. maalintii saddexaad ay waxa uu dagaal culus ka soconaya koonfurta waddanka Afghanistan xilli ciidamada dowladda ay isku dayayaan inay caasimadda gobolka Helmand ee Lashkargah ka difaacaan weerar halkaas ay ku hayaan ururka Taliban. waxaa la qiyaasayaa in ka badan 5,000 oo qof ay guryahoodii isaga carareen. saraakiisha waddanka Itoobiyana waxay sheegayaan in ugu yaraan 12 qof lagu dilay qulqulatooyin hor leh oo ka dilaacay gobolka Benishangul Gumuz. bilihii la soo dhaafay waxaa halkaas ku soo badanayay weerarada qoomiyadda ku salaysan ee lagu bartilmaameedsanayo qoomiyadda Amxaarada iyo midda Agow ee laga tirada badan yahay ee dalkaas. kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa waxay sheegaysaa in ugu yaraan 10 qof ay dileen booliska waddanka Nigeria intii ay socdeen dibadbaxyo toddobaad socday. dibadbaxayaasha ayaa markii hore waxa isugu soo baxeen wadooyinka si ay u cambaareeyaan tacdiyada ay geysanayaan ciidamada gaarka ah ee ka hortaga dhaca iyo boobka ee booliska ka tirsan ee waddankaasi. ciidamadaas ayaa si rasmi ah loo kala diray axaddii aynu ka soo gudubnay, hase yeeshee dibadbaxyada ayaa sii socday iyadoo dadkuna ay dalbanayaan in isbeddel ballaaran lagu sameeyo booliska. ugu dambeynna saraakiisha asalkooda ka soo jeeda waddanka Armenia ee ku sugan gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh ayaa sheegaya in 17 askari oo kale oo ciidamadooda ka tirsan lagu dilay duqeyn ay xalay halkaasi ka geysteen ciidamada Azerbaijan. iyadoo dagaalku uu haatan galay toddobaadkii saddexaad ayaa Armeniyiinta dhulkaas maamula waxa ay sheegayaan inay ka dhinteen in ka badan 540 askari. warka caalamkana waa naga intaan dib idinku celiyo Cabdiraxmaan iyo qaybaha kale barnaamijka. Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay Cabdifataax Ibraahim Cagayre warka idaacada duhurnimo inoo soo jeedinay halkaad kala socoteen waa BBC. aan ku bilaabay ciidamada ammaanka ayaa xalay ilaa iyo saaka ka qaaday wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho dhagxaanta shubka ah ee lagu jaray si looga hortago gawaadhida qaraxyada sida ee Al-Shabaab ay ku weeraraan xarumaha dawladda iyo waliba hodheelada waaweyn. wadooyinka oo qaarkood ay go'naayeen muddo ka badan 6 sano ayaa wax dhibaato ku qabay dadweynaha magaalada oo arkayay inuu caqabad ku yahay inuu socdaalkooda iyo waliba ganacsigooda. haddaba wararka arrimahaasi la xiriira si aan u helno waxaad khadka Muqdisho toos uga jira wariyahena BBC
c ibraahim maxamed aadan. cabdiraxmaan waxaa hadda muqdisho ka socota munaasabad ay boolisku ugu magacdareen furitaanka wadooyinka muqdisho. xalay waqti dambe ayay dadweynuhu kusoo tooseen in dhagaxdii shubka ahayd ee la dhigay wadooyinka waaweyn gaar ahaan isgoysyada muhiimka ah ee mara wadada wadnaha ee bartamaha magaalada in la qaaday. tusaale ahaan ku yaala isgoyska Sanca Sinai 4 jardiino ilaa laga soo gaaro isgoyska suuqa weyn ee Bakaaraha loogana soo gudbo isgoyska Sheekh Cali Suufi. dhammaan dadweynuhu saaka waxay kusoo tooseen in dhagaxdii shubka ahayd ee halkaasi laga qaaday, laakiin weli waxaa taagan ciidanka booliska oo halkaasi ka ilaalinaya socodka dadweynaha iyo gaadiidka. qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta maxalliga ayaa sidan u soo dhaweeyay furitaanka wadooyinka qaarkood ee saaka ciidamada ammaanku ay dhagaxda ka qaadeen. boqolkiiba boqol maanta waxaa ku faraxsanahay wadadan oo rafaad iyo wareeg ah u soo mari jiray anoo inta alaab ka qaadayo aan arkay saaka iyadoo la furayo aad iyo aad hambaliyaa leeyahay inta dhimanna inay noo dhammaystiraan insha Allah. aragtida ku aadan sidaan u arka waxaan u arkaa ayadda quraanka ay ahayd ina macal usri yusran waxa waa culays marka waxaan u arkaa aragti fiican oo aan ku faraxsanahay oo malaynahay in inta kale ee ah dadweynaha magaalada Muqdisho ku nool in farxadda aan qaba ay la qabaan maanta waxay la mid tahay maalin ah iid yaani dadka lugahooda ama xorriyadda xagga socodka ay u furantay. Allah wax wanaagsanayaan orkaa oo maxal celinay ra'iisul wasaaraha maadaama uu wadooyinku noo furay wareeg iyo jag iyo dhexdhexayna dhibeen insha Allah aadan u mahad celinay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha. dhibaatooyinka ku qabnay waxaan ku qabnay wareegasho iyo raaxaan iyo godgod iyo biyo iyo mataqaanaa lacag laan ku qabnay inta waa ku qabnay iyo cariiri wadooyinka kale cariiri sayd ah intaasaan qabnay. wallahi waxaan joogaa isgoyska Sanca gaar ahaan degmada Kaaraan kulleeto aad iyo aad u soo dhaweynaa xaaladda dhacday dhagaxa la qaaday wadooyinka la furay bulshada oo u fududaatay waxyaabihii hore oo cakirnaadi dhagaxii laga qaaday aad iyo aad aan soo dhaweynaa. waliba waxaan jeclaa meelaha kale oo xiran macnaha dhagaxa laga sii qaado si macnaha kala furnaashada bulshada shacabka ay si aad iyo aad dadweynaha isugu gudbaan. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada. weliba waxay u badnaayeen darawallada mooto bajaajta oo iyagu loo ogolaa inay wadooyinkii la furay ka gudbaan, laakiin waxaan weli wadooyinkaasi aan ka gudbi karin gaadiidka kale ee caadiga ah gaar ahaan kuwa dadweynaha oo saaka marka ay damceen inay aagagaasi ka gudbaan ciidanku ay u sheegeen in aanay ka gudbi karin. mid ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ayaa sidan isna sheegay. aniga ma arag maanta wada furan mana loo ogolo bi'elada inay leexdaan. waxa la isku ajaray dadweynaha baabuurta bi'elada waday iyo askarta qoryaha wadato. waxa sababteeda leh dadka idaacadaha leh waxaan jirin oo been ay sheegeen qofkii leexdana foolka xabad looga dhiftay. dhibkaasaa jiro waa dhici kartaa wax dhici kara waa askariga amar waxa la siiyo baabuur soo leexanin dadweynahana idaacadaha waxay ka dhageysteen waa lagu leexan karaa. waa laba arrin oo isdiidan. waa kaas hadda baawur taagan askari ah rugo waa kaas. muddo dhowr bilood ahba waxay ciidamada ammaanku wadeen qorshe ah in la kala fududeeyo xiritaanka wadooyinka magaalada. wararka aan helayna waxay sheegayaan in inta badan dhagaxdii laga qaaday wadada wadnaha loo bedelay wadada warshadaha ee galbeedka magaalada, iyadoo aagga la xiraya intii ka horeysay in ka badan hadda la ballaarinaya si loo ballaariyo gudaha inta furan. marka dabcan hadda waxaa socota cadow munaasabadaas oo ay ka qayb galayaan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo saraakiisha booliska. waxaan sugaynaa hadba sida ciidamada ammaanku ay u fasiraan qaabka cusub ee dhagaxda hadda looga qaadayo wadooyinka iyo halka la geynayo, inagoo og in toddobaadkii hore dhagaxaanta qaarkood meelihii laga qaaday in meelo ilaa dhowr boqol oo mitir u jirta la geeyey. sidoo kale waxaan ognahay in aan weli gaadiidka dadweynaha aan loo ogolayn in wadooyinkii hore loo furay aanay ka gudbi karin. marka dabcan waxaan sugnaaba waa sharaxaada ciidamada ammaanka iyo booliska ee ku aadan arrimahaasi. cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay wariyahena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo warbixintaasi khadka telefoonka toos ugu jiray inoo soo gudbinayay dhinaca Facebook. dhageystayaashana fikirkooda inoo soo mariyay haddii aan midii laba ka soo qabto. Cabdullaahi Jaamac Oogle oo jooga Burco waxa uu yiri booliska Soomaaliya ee shaaciyay in la furi doono wadooyinka xidhan ee Muqdisho. waan soo dhaweynayaa tallaabada lagu furayo jidadka Muqdisho ee xidhnaa muddada dheer. waxaan rajaynayaa biri inaanay mar dambe dhicin sida oo kale in jidadka Muqdisho loo xidho. fikirka ka duwan waxa qaba Cabdicasiis Daahir Aadam oo jooga Cabuud Waaqo waxa uu yiri booliska Soomaaliya ee sheegay in ay furi doonaan wadooyinka magaalada Muqdisho runtii waxaan u arkaa tallaabo aan waxba soo kordhinayn. haddii ay ku dhaaqaan waa ayuu yiri waxa wali taagan qatartii markii hore loo xidhay mana ahan in shacabka la haligo. waa fikirkii dhageystayaasheena ay dhinaca Facebook noo soo mariyeen.
xubnaha xisbiga TPLF ee ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa ku gacan sayday baaqa uga yimid xisbiga ee ahaa inay iska casilaan xilalka ay dowladda dhexe iyo meelaha ka baxsan deegaanka ay ka hayaan. Baaqa xisbiga hogaamiya deegaankaasi Tigreega ee TPLF ee dalka Itoobiya iyo maamulada deegaankaasi waxay ku tilmaameen inuu yahay sharci darro aan la aqbali karin. Samiir Cabdullaahi Jaamac iyo warbixintaas soo jeedinaysa. xubnaha xisbiga TPLF ee ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa baaqa uga yimid deegaanka Tigreega oo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aanay ku dhaqmi karin. Waxa ay intaa raaciyeen in xisbiga TPLF uu dhawaanahan waday tallaabooyin sharciga waafaqsanayn oo ay ku tilmaameen khiyaano dhanka siyaasadda ah isla markaana kala fogeyn karta shacabka deegaankaasi iyo xisbiga talada haya ee PP. Siyaasiyiintan ayaa tilmaamay in doodda maamulka Tigreega ee ah in xisbiga talada haya uu qaatay xuquuq ay qowmiyadaasi leedahay ay tahay mid waxba kama jiraan ah. Hoggaanka maamulkaasina looga fadhiyo in uu saxo khaladaadkii dhawaan ka dhacay. Waa sida ay hadalka u dhigeen. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii horaantii Sebtembar uu deegaankaasi qabsaday doorasho ay qaadacday xukuumadda Addis Ababa. Xisbiga haya talada deegaankaasi ee TPLF ayaa ku guuleystay 98% codadkii laga dhiibtay doorashada muranka dhalisay. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa sare u kacay xiisadda u dhaxaysa Tigreega iyo Addis Ababa, waxaana ay gaartay heer uu maamulkaasi sheego in uusan u hoggaansami doonin amarada dowladda federaalka oo ay ku tilmaameen mid si sharci darro ah dalka u xukumaysa. TPLF oo ku dhawaad 30 sano ka talinaysa Itoobiya ayaa doonaysay in doorashadii la baajiyay ay xilligeeda ku dhacdo, waxayna u aragtaa xukuumadda Abiy Ahmed mid gacan bidxaynaysa qowmiyadda Tigreega. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. Telefoonka nambarkiisu yahay 44 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali. markana Malaysia mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalka Malaysia ayaa dalbaday in uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi kadib bilooyin ay deganaansho la'aan siyaasadeed taagneyd. Anwar Ibrahim oo booqday boqorka dalkaasi ayaa u sheegay inuu haysto taageerada aqlabiyadda xubnaha baarlamaanka. boqorka oo awood u leh soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa laga sugayaa go'aanka uu arrintaasi ka qaadan doono. Mr. Anwar ayaa dalka Malaysia in ka badan 20 sano ka soo qabtay xilal sarsare. Ra'iisul wasaaraha tan xilka haya Muhyiddin Yassin wuxuu xilka la wareegay bishii Maarso welina ma cadda cidda taageerada ugu badan haysato. Haddaba Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Koodha oo ah arday jooga ama wax ka barta Malaysia ayaan ka wareysanay xaaladda siyaasadeed ee dalka Malaysia. Anwar Ibrahim wuxuu u doonayay ra'iisul wasaaraha inuu noqdo 2018 wadankan doorasho ka dhacday. Marka doorashada waxay ku saleysnayd ra'iisul wasaarihii hore oo kursiga ka dagay Dr. Mahathir iyo Anwar baa xisbi isku midaystay. Xisbiga talada haya oo 50 sano inta ku dhow ka soo talinaya wadankan bay kaga guuleystay. Markay heshiiskooda wuxuu ahaa in 4 sano oo mandate-ka ay xukuumaddaas haysato in 2 sano uu Mahathir maamulo. Markaasna waxaa xabsiga ku jira Anwar oo dowladii ka horeysay xukuumadda ay dambi ku soo ogtay in 2 sano markuu dhamaatana uu xilka ku wareejiyo. Caqabad waxay ka dhalatay markii 2 sano markii dhamaatay baa wax isfaham waa ku dhex milmay labadii ugu sarreeyay xisbiga Pakatan Harapan oo Anwar iyo Mahathir ra'iisul wasaarihii hore. Caqabadii waxa loo gudbiyay boqorka wadanka March 2 sanadkan. Boqorkii baa wadankan awoodda rugniga uu sareeya oo marjacadii Christ loo noqonayo waa boqorkii baa wuxuu sameeyay wuxuu prime minister 2 sano hadda sii dhameeyay uu doortay Muhyiddin oo ah saaxiib hore oo Mahathir. Marka Anwar wuxuu haystaa aqlabiyadda baarlamaanka. Wiigi hore doorasho ka dhacday gobolka Sabaxna taageero weyn buu ka helay, taasoo ku dhalanaysa inuu tiga raadiyo maantana boqorku la kulmo. waan gartay marka ra'iisul wasaaraha tan xilka haya Muhyiddin Yassin waxa uu xilka la wareegay bishii March adigu baad sheegtay. Marka maxay salka ku haysaa xiisadda siyaasadeed ee hadda ka taagan Malaysia? horta koow waxa weeye Malaysia systemka ka jira waxa weeye xukuumadii markii la doorto 4 sano waxa jira dastuurku wuxuu qorayo ah hadii majority laga helo 4 sano dhamaysanin oo kursiga prime ministerka bareenaysid cidii hesha maxay majority la wareegayso. Markii hore Anwar waxa loo guuleystay majority-ga codad aad u yar ilaa 97 cod buu haystay. Wadankan baarlamaanka aqalka hoosena waa 220. marka hadda maanta wuxuu kaleem gareeyay inuu haysto 122 xildhibaan boqorku la kulmay 30 daqiiqo la joogay. marka taasay keenaysa in Muhyiddin siyaasadiisa iyo policy-giisa shaki badan galiso loona maleynaya haduu boqorka aqbalo in wiiga soo socda laga wareegi doono talada. marka go'aankani ku aadan cid hogaaminaysa Malaysia ee ra'iisul wasaaraha ka noqonaysa waxa leh boqorka marka mal saadaaliyay waxa uu ka yeelayo codsiga Anwar ee ku aadan xilkaasi.
dadka siyaasadda aad kuga faallooda Malaysia hadallo badan oo kala gedisan bay sheegaan مثلا boqorku waa udub dhaxaadka u dhaxeeya wadankan cid gaar ah oo la jiro ma jiro 9 boqor oo kale way jiraan oo hooseeya laakiin mandate ku xaway 5 sano inuu ninba maamulo waxa la filayaa boqorku wuxuu saaxiib la ahaa madaxweyne ra'iisul wasaarihii hore ee Mahathir oo la filayo hadda inuu Anwar dawada ka riixay marka hadii sida loo badinayo dadka aad siyaasadda uga faalo waxay leeyihiin boqorku wuxuu baahan haduu inuu haduu aqbalana Anwar 122 xildhibaan oo cod majority oo kalsooni looga qaadi karo ra'iisul wasaaraha talada haya dadka qaarna waxay leeyihiin boqorku wadanka xilligan lagu jiro coronavirus oo doorashadii gobolka hadda wiig hore ka soo dhacday caseska dib u soo celiyaan wadanka oo pandemic ku soo noqday waxa dadka qaar waxay aaminsan yihiin perception kale oo ah inuusan boqorka aqbali doonin oo macnaha doorasho election la aadi doono maadaama wadankii lockdown ku jiro Anwar Ibrahim oo ninka had xilka doonaya waxa uu 20kii sano ee la soo dhaafay oo u suxul duubayay jagadaasi welina kuma guuleysan marka maxaa hortaagan Anwar sidaan ognahay wuxuu deputy prime minister ka soo noqday xukuumadii ra'iisul wasaare Mahathir intii u dhaxaysay 1996 ilaa 1998 waa nin lagu amaano xinta uu jagadaas joogay shaqo fiican uu ka qabtay wadankan xilkasnimo Anwar dhowr waxba waxa weeye siyaasadiisa mugdi gelisay dawladii Mahathir oo ku soo ogtay wax la yiraahdo corruption inuu geystay second 15 sano ugu dambeeyay Anwar waxa caqabad ku noqotay waxa uu waayay in maxkamadda dhowr jeer loogu yeero xabsi ilaa 10 sano ku dhowna uu galo kiis loo haysto oo Google Dhaaf kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Koodha oo arday ah jooga wax ka barta Malaysia oo khadka telefoonka igu waramay markana Hargeysa laamaha ammaanka ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ayaa ku raad jooga askari la sheegay inuu xalay magaalada Hargeysa ku dilay taliye ka tirsan ciidamada meydka marxuumka ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay isbitaalka faafaynta dilkaasi sida uu dhacay waxa goor dhaweed iga waramay wariyaha BBC Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad عدو مرحوم كجريدي مدرسة محمد وشة محمود شامع أحمد لوجران أوجي هاي محمود هنا شامع دكتور وحوها تليه ورعيدا كملترية كترسن وجارهان بجالد هرجيس كوسوجان حلي أيا واحد دلي نينكا لو يستقون عيدا كترسن وركن هلا واحد يشيء يعني إن نينكا توكتي ويستقل لفتي سو كترسنا وركو ومامولي مركا قوبتا أي دجنا ninkaasi uu gaarka u lahaa ilaalada isla xalay goorta uu dili doono waxa ay sheegeen ehelka ninka dhintay oo aan la hadlay in uu masaajidka uu ka yimid taliyuhu deedna uu xarada yimi oo aan markaa ciidan badan ay ku sugnayn deedna uu xabado ku dhuftay ninkii gaarka hayay imika lama oga sabab u horeysay oo uu u dilo waxa kale oo tirsan in uu ninkii isla goobta markii uu ninka dilayba uu baxsaday isla marhaantaana ilaa imika aan lahayn weli ciidanka boolisku kama hadal inay soo qabteen inay raadinayaan laakiin kulley gudabjir iyo howlahaas ay ku jiraan wixii faahfaahina markay ciidanku ka hadlaan ayaynu soo gudbin doonaa insha allahu tacaala Sidiiq Maxamed Burmada aad buu u mahadsan yahay barmalkana dhinaca Facebook haddii mid ka mid ah dhageystayaasheena fikirkooda kasoo dhiibtaan soo qabto Cabdullaahi Jaamac Ogle oo Bulshaawi loo yaqaano oo jooga Burco waxa uu yiri booliska Soomaali raalli hada waxa uu yiri dilka loo geystay marxuumkani oo taliyaha markaas uu geystay magaalada Hargeysa runtii waa arin aad loogu xumaaday uu yiri runtii baryahan dambana askarta taliyaashooda dilaya way ku soo badanayeen Somaliland waxaana markaas muhiim ah in cadaalad la soo mariyo askari walba oo dila taliyihiisa si falalka foosho xumi uga dhamaadaan ciidanka mahadsanidin BBC ayuu yiri dhinaca sportiga ama ciyaaraha hadii aynu eegnana wali waxaa socda tartanka kubadda cagta ee UEFA National League loo yaqaan waxa markaas dhici doona kulamo ay kamid yihiin Jarmalka iyo Switzerland, Ukraine iyo Spain, Montenegro iyo Luxembourg dhanka kale waxaa soo taamay kooxaha diidan qorshaha ay wadaan kooxaha Liverpool iyo Manchester haatana baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caasha Saciid Xasan Caasha mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdi oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Ismaaciil Yuusuf Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sacuudiga 2012 haddaba hadii uu maqlay Ismaaciil Yuusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdiraxmaan Yuusuf ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer
nimca cabdiraxmaan cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa yuusuf cabdiraxmaan cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka masar sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf cabdiraxmaan cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey nimca cabdiraxmaan cali ayadoo wix wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. sundus cumar siciid oo joogta baardheere waxay baafinaysaa luul cali siciid waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan zambiya 2002 haddaba haddii ayna maqlayso luul cali siciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sundus cumar siciid ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. mustaf aadan cilmi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa xaawo aadan cilmi waxaa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka faransiiska sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo aadan cilmi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mustaf aadan cilmi ayadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. najma cabdiqaadir cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa aadan suldaan fu'aad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jarmalka 2006 haddaba haddii uuna maqlaya aadan suldaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo najma cabdi ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. hindi yuusuf mahad oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cusmaan yuusuf mahad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan yuusuf mahad amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey hindi yuusuf mahad ayadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. faadimo salaad cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa salaad cabdi yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mozambique 2014 haddaba haddii uuna maqlayo salaad cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadimo salaad ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 muna axmed salaad oo joogta baardheere waxay baafinaysaa xaliimo salaad cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka norway sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo salaad cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyey muna axmed salaad ayadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. salaado cali cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa mahad cali cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kanada 2004 haddaba haddii uuna maqlayo mahad cali cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo salaado cali cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 sagal mataan asad oo joogto baardheere waxay baafinaysaa dadka kale ah samiiro mataan asad iyo xaliimo mataan asad waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka holland sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayaan samiiro mataan asad iyo xaliimo mataan asad amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyey sagal mataan asad ayadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. asli maxamed faarax oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cusmaan maxamed faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2016 haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan maxamed faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo asli maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. maslax yuusuf cabdi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa ibraahim yuusuf cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim yuusuf cabdi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye maslax yuusuf cabdi ayadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 2526 axmed siciid asad oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa fartuun saciid asad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska haddaba haddii ayna maqlayso fartuun saciid amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ifrax maxamed cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa maxamuud cali yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud cali yuusuf amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ifrax maxamuud cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cumar guhaad samatar oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa guhaad samatar cilmi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan sweden 2008 haddaba haddii uuna maqlayo guhaad samatar amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cumar guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 sundus cabdi shukri cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa
aamine cabdi shukri cali waxaa ugu wardambeysay sanadii 2017 haddaba haddii ayna maqlayso aamine cabdi shukri cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiye sundus cabdi shukri cali iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. nasra cabdi salaad oo joogto baardheer waxay baafinaysaa faizo cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii ayna maqlayso faizo cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nasra cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 xamdi xuseen guhaad oo joogto baardheer waxay baafinaysaa samiiro guhaad aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sweden sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso samiiro guhaad aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi xuseen guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. sacdiyo mahdi samatar oo joogto baardheer waxay baafinaysaa ifraax mahdi samatar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Denmark haddaba haddii ayna maqlayso ifraax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sacdiyo mahdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. cabdiye cumar salaad oo joogto baardheer waxay baafinaysaa muuse salaad cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Angola sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo muuse salaad cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiye cumar salaad iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 252646 hani cabdi aadan oo joogto baardheer waxay baafinaysaa kuusow cabdi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2007 haddaba haddii uuna maqlayo kuusow cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hani cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 25264788 hani yuusuf cabdille oo joogto baardheer waxay baafinaysaa maxamed yuusuf cabdille waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed yuusuf cabdille amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye hani yuusuf cabdille iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 25261448 qadra maxamuud jaamac oo joogto baardheer waxay baafinaysaa sucaad maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2016 haddaba haddii ayna maqlayso sucaad maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadra maxamuud jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. canab maxamed aadan oo joogto doolow waxay baafinaysaa nasre maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso nasre maxamed aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo canab maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. hindi abuukar axmed oo joogto baardheer waxay baafinaysaa farxiyo asad cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jarmalka 2005 haddaba haddii ayna maqlayso farxiyo asad amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hindi abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. muxidiin cabdi cismaan oo jooga doolow waxa uu baafinayaa maxamed cali cismaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud cali cismaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo muxidiin cali cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. nasro nuux ibraahim oo joogto baardheer waxay baafinaysaa nuux ibraahim yaasiin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2012 haddaba haddii uuna maqlayo nuux ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nasro nuux iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. xamdi ibraahim saciid oo joogto doolow waxay baafinaysaa faadimo ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo ibraahim amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi ibraahim saciid iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. ceebla suleymaan maxamed oo joogto baardheer waxay baafinaysaa xalimo suleymaan maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Australia 2018 haddaba haddii ayna maqlayso xalimo suleymaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ceebla suleymaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheer. saado warsame cigaal oo joogto doolow waxay baafinaysaa cismaan warsame cigaal waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo cismaan warsame cigaal amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saado warsame cigaal iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay
baardheera baafinta ugu dambeysa maanta waxay naga soo gaartay fartuun mursal diini waxay baafinaysaa dadka kale ah xaawo mursal diini iyo axmed mursal diini waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Yemen 2010 haddaba haddii ay maqlayaan xaawo iyo axmed ama way jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyo fartuun mursal ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526 waa hagaaga barnaamijkaasi baafinta ayaa ugu dambeeyay idaacadeena duhurnimo oo noo soo bilaabatay labada oo inoo soo jeedinaya Faysal Bishaar Aligo iyo Caasha Saciid way mahadsan yihiin intaynu ka kulmayno idaacadeena galabnimo 5 waxaan kaga tegaynaa dhammaanteen isku duuban sida iyo nabad gelyo